بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. marka ugu horeysa waxaan salaamayaa guddoonka labada aqal iyo ku-xigeenadooda iyo guddiga doorashada mudanayaasha goobta jooga ee labada aqal. waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. muddo 5 sano ka hor ayaan baarlamaanka golahan cod weydiistay, kuma aanan guulaysanin. guushii waxay raacday madaxweynaha hadda xilkiisa dhammaaday. markii aanan guulaysan waayey dalka kama aan tegin, waan joogay 5 sano bulshada ayaan dhex joogay oo aan ka shaqaynayay inaan isku dayo toosinta dowladda, difaacda xuquuqda muwaadinka, u hiilinta ama u hadlidda dadka iyo deegaanada dulman, wacyigelinta joogta ah u sameeyey bulshada oo aan kala hadlay arrimaha dowladnimada iyo dowlad wanaagga intaba. waxaasoo idil waxaa iga soo gaaray dhib aad u fara badan si aad la socotaan, oo isugu jira dil loo geystay saraakiil ciidan oo ilaaladeeda ahayd, dacaayad loo sakhiray kumanaan kun oo qof oo anay ugu wajahan, caburin aan kala kulmay iyo cadaadis xoog leh oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba la iga saaray, oo ah diblomaasiyaddii iyo xooggii dowladda la ii adeegsaday. waxaa iiga sii horreysaan la socotaan 12 sano oo la yidhahaa cabdiraxmaan cabdishakuur bad ayuu iibsaday. intaasoo dhan waxaan u haystaa inay imtixaan u ahayd oo la tijaabinayey inta uu la egyahay dulqaadkayga, inta uu la egyahay sabarkayga, inta uu la egyahay mowqif inaan ku sugnaado, inta uu la egyahay adkaysigayga ama gegsigayga, inta uu la egyahay inaan ahay hoggaan u qalma dalkan iyo dadkan inuu hoggaamiyo. waxaan rabaa qof kasta oo dhib ii geystay, hadduu yahay mid gacan ah ama haddii yahay mid af ah ama hadduu yahay mid qalbi ah, intaba inaan iska cafiyo, idinkana aan cafis in weydiisto. mudanaan ii marwooyin, sidaa la socotaan dalkeenna 5 sano lasoo dhaafay dhibaatooyin badan ayaa ka dhacay. boosaaso colaadaa ka dhacday, dhuusamareeb colaadaa ka dhacday, beledweyne colaadaa ka dhacday, xamar dagaalaa ka dhacay, gedo waa ka dhacay, baydhabo waa ka dhacay. meel kasta waxaan dhihi karnaa oo caasimad dowlad goboleed ah iyo caasimadda soomaaliyaba ama caasimadaha labaadba oo dowlad goboleedyada dagaallo ayaa ka dhacay. dagaalladaas waxay salka ku hayaan siyaasad, ma aha dagaallo hadda qabiilooyin isdagaaleen, waa dagaallo siyaasad la isku dagaalay. sidaas daraaddeed dalkani wuxuu u baahan yahay marxaladda soo socota hoggaan u istaagi kara dalkaas inuu dib u heshiisiinka dhex abuuro, isugu yeera. 5 sanoo la soo dhaaftay waxaan u taagnayn oo halkudhig noo ahaa oona ku celcelinayna mar walbaba dalkan in lagu wadi karo is-ogol iyo talada guddoonkeeda loogu midaysan yahay. taas ayaana keentay barnaamijka siyaasadeed ee aan soo bandhignay in hor yaalla inuu aasaas u yahay wax la yidhaahdo wadajir, oo ah annagoo wada jirna iyo wadatashi, talo wadatashi ku dhisan. labadaas ayaan ka soo dheraandherinay barnaamijkiina hor yaalla isaga ah. sidaas daraaddeeda waxaan leenahay annaga oo victim u ahayn rajiimka hadda wakhtigiisa dhammaaday, waxaan diyaar u nahay inaan gacan u fidinno cid kasta oo dhib noo geysatay. gacantaasna haddii aadna doorataan oo fursad noo siisaan xildhibaanada labadiinna aqal, dadka soomaaliyeed ee kala irdhoobayna inaan ku raadinno gacantaas ayaan diyaar u nahay, oo dib u heshiisiin dhab ah aan soomaalida ka samayno, ayagoo garowsan haddii annaga aan tanaasulnay ayagana inay tanaasulayaan annagoo garowsan ayaan halkaas rabnaa inaan ka anba qaadno. waxaan rabaa inaan 2 qodob uga noqdo khudbadii aan jeediyey 2016 oo golaha sharaftale aan u jeediyey. labadaas qodob waxay yihiin suurad ku jirta ay suuratul-kahfi ku jirtay oo ka hadlaysay dalqarnayn iyo wixii dhex maray qoladii tabaalaysneed oo weydiisatay inuu gacan siiyo, oo weliba ayagoo dhahay waxaan ku siinaynaa kharaj, adigaan dhaqaale ku siinaynaa. qaaluu waxay ina ya'juuja wama'juuja mufsiduuna fi lardi fahal najcalu laka kharjan calaa an tajcala baynana wa baynahum saddan ay dhaheen. dhaqaale aan ku siino oo kharash aan ku siino annaga iyo qoomkan ya'juuj iyo ma'juuj la yidhaahdo teed noo kala dhex dhisay ku yidhaahdeen. asagana wuxuu ugu jawaabay qaala maa makannii fiihi rabbii khayr
faaciinuunii biquwa waxa ilaahay imakaniya iga khayr badane awood igu kaalmayo dhahay awoodda waxa haystay ayagay ahaayeen xataa idaa saawaa bayna sadafayni qaala anfuqu markuu labadiisa isku soo dhoweeyey ayagoo yidhi afuufa aatuunii zubar alxadiid oo dhaha markii hore zubarka xadiidka haysataan ii keena waxa awooddooda iyo zubarka xadiidka iyo waxa dhan la isticmaalaya ayagay ahaayeen taasoo macnaheedu yahay dalkan soomaaliyeed khayraada ku jira bashar awood lahaa joogo soomaali la yidhaahdo oo dowlad la'aan wax kasta ayaga samaystay hadday tahay koronto hadday tahay biyo hadday tahay bangiyo hadday tahay diyaarado hadday tahay waddooyin hadday tahay jaamacado hadday tahay iskoollo dadka ayagaa samaystay waxa ay la'yihiin waxaa waaye hoggaankaasoo kaletaa dalqarnayna oo awooddooda ama potentialitigooda uga faa'iideeyey oo uga faa'iideeya khayraadka ay haystaan oo uga faa'iideeya dadnimada ay leeyihiin ee soomaaliyeed ayay la'yihiin dadka waxay la'yihiin waa intaas sidaas daraaddeed barnaamijkayga siyaasadeed wuxuu ku salaysan yahay 5 qodob 5taas qodob waa 5ta maalintii dowladda la dhisay ee Soomaali carta isugu timid lagu heshiiyey in la fuliyo laakiin nasiib daro 5 maamul oo isbedesho kan hadda joogo u dambeeyo 5taas qodob waxba kama qabanin anigana waxa aan ballan qaaday waxay tahay inaan 5taas uu xoogga saaro si kooban hadda uga hadlana waxa waaye midda koowaad oo ah dhamaystirka dastuurka waa dastuurka in la dhamaystiro maxaa ahmiyad siinaya dastuurka in la dhamaystiro dastuurka in la dhamaystiro waxaa ku jira dib u heshiin siyaasadeed ku dhex jirta dib u heshiin siyaasadeed hadaa maqashid dastuurkay ku dhex jirtaa say ugu dhex jirtaa waxay u dhex jirtaa waxa la isku hayaa waxay tahay awoodda iyo sida loo isticmaalayo sida loo qaybinayo hadday tahay heer federaal iyo hadday tahay heer dowlad goboleed waa qodob saasoo kale khayraadka dalka ku jira sida loo qaybinayo laftiisa waxa la isku haysto ka mid yahay deeqaha dalka soo gala ama dakhliga soo xarooda sida loo qaybinayo iyo sida loogu qaybsanayo intaba loolanka siyaasadeed ee siyaasadda lagu barantamayo sida xanafta looga ilaalinayo oo mid madaniya looga dhigayo waxaasoo idin waxaa waaye dastuurkay aasaas u yihiin asagay ku jiraan haddaan marka qodobadaas laga hadal dastuurka lagu dhammaystirin ma dhacayso dib u heshiin siyaasadeed sida hadda aan sheegay min boosaas ilaa igada la isku dagaalsan yahay ee dagaalka u taagnaa doonaa sababtoo ah dagaalkaas waa dagaal siyaasadeed waa inaan ogaanaa ma aha dagaal daaqsin iyo dagaal xadeed iyo dagaal beeleed maaha waa dagaal siyaasadeed dastuurkii marka 5tii maamuleena soo dhaaftay dastuurkii ma aysan dhammaystirin dastuurku wuxuu u baahan yahay in la dhammaystiro go'aan dhiirasho leh u baahan yahay wuxuuna u baahan yahay hoggaanka dalka inuu political will wax la yidhaahdo uu hoggaansan ama rabitaan siyaasadeed xaggiisa uu ka yimaado qodobka labaad waa doorasho qof iyo coda doorashada aan maalin kasta qabanno oo 5tii maamul ee la soo dhaaf ay qabanayeen waxay ahayd doorasho marna odayga wax soo qorayo marna ergo wax soo dooranayso iyo tii ugu dambaysa dowlad goboleedyada ay soo magacaabayeen xildhibaanada aan ku soo dhammaanay oo ayaga dhan musuq iyo gacanka hadal iyo dhibaato ay ka abuurmaysay oo qofku asaga leeyahay xildhibaanka anaa keensanaya taasi looga baxo oo awoodda shacabka loogu celiyo waxaan u baahannahay in doorasho qof iyo cod la qabto 5tii maamul ee soo dhaaftayna ma aysan qabanin midda saddexaad waa dhismaha ciidan qaran marka aan leenahay waa ciidan Soomaali u dhan tahay gobolladeeda iyo qabaa'isheeda u dhan tahay waa ciidan siyaasadda ka madax bannaan oo dastuurkii sharciga ilaalinayo ma aha kaliya dareeskiisa inuu qurxan yahay mishaarna inuu qaato maaha waa ciidan xeryo ciidan ku jiro waaye ee xaafadaha aan ugula noolayn oo jidadka aan taagnayn ciidankaasaa la yidhaahdaa oo ah ciidan ilaalinaya waajibka qaran ee asaga aan saaran ee madaxda aan weeraraynin mucaaradka aan jidka u gelaynin kuwa mudaharada aan xabadaynaynin ciidankaas waa ciidankaan sheegayno oo ciidan qarana ciidan qaran haddaan dhisannane amisomna waa naga maaransiinayaa al-shabaabkana wuu naga celinayaa taas waa qodobka saddexaad midka afraad waxaa waaye ka gungaarista wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland 5tii maamul arrintaas ma aysan ku gungaarin in Soomaaliya iyo Somaliland ay wada hadlaan oo meel la saaro oo tabashada ay qabaan walaalaheen iyo waxa ay damacsan yihiin oo ay ka damacsan yihiin aytiinka wadahadalka lagala hadlo ma aysan dhicinin wadahadallo iska shirar ah oo aan ajado lahayn oo aan road map lahayn oo milestones aan lahayn oo aan qorshe meel ka bilowdo meel ku dhimaado lahayn oo ajadayaasha wadahadalka laga wada hadlayo waxay yihiin aan lahayn oo Soomaalida dowladda federaalka ay heshiis ku ahayn sida loola hadlayo Somaliland ayaa soo dhacay
midka shanaad waa maqaamka caasimadda gobolka banaadir oo ah in meel la saaro magaalo 3 milyan ku nooshahay oo meeyarkeeda maalin kasta madaxtooyada laga soo magacaabayo oo dakhligeeda iyo canshuurteeda aanan loo qaybinaynin service loogu qabanaynin dadkii ay ka imaanaysay ee reer muqdisho waayo qodobka shanaad shantaas qodob oo halbowlow ah dib u dhiska dowladnimada shantii maamul ee la dhaafay ma aysan qabanin barnaamijkayga si faahfaahsan ayay ugu taallaa ayna ugu qoran tahay inaan wax ugu qaban doono walaalayaal dalkan wuxuu u baahan yahay hoggaan adkaysi iyo dulqaad leh hoggaan karti u leh inuu dadka ka soo horjeeda aqbali karo hoggaan karti u leh inuu dadka inta ka ra'yi duwan xamili karo hoggaan karti u leh inuu baarlamaanka uu ka ra'yi doonaa karo sidaa og tihiin labada aqal ee baarlamaanka dastuurkeenna annaga iyo dowladnimadeenna waxaa asaas u ah baarlamaanka waa barlamentarian ma aha presidential ma aha system oo madax ka noolehe ma aha systemka waa system barlamentariana sidaas daraaddeed sovereigntiga ama waxa siyaadada la yidhahdo madax bannaanida qaran waxay taallaa baarlamaanka ayay taallaa taas ayaana qasab ka dhigaysa in baarlamaanka uu noqdo awoodda ugu sarraysa madax kasta ee timaaday dalka ee soo martay baarlamaanka waa awood tireen waxay ku awood tireen inay guddoomiyaasha baarlamaanka iska beddelaan inay madaxdii la shaqaynayso ra'iisul wasaarayaasha iska beddelaan inay xukun ka tuuraan haddii ra'iisul wasaaraha kale ra'yi duwanaadaan hadday guddoomiyaha baarlamaanka ra'yi duwanaan inay xil ka tuuraan saas ayaana instability ama xasilooni darro siyaasadeed oo dalku soo wajahaya wuxuu u baahan yahay dalkan isaan sheegay hoggaan dulqaad leh hoggaan aan laga cabsanayn laakiin laga heebaysanayo u baahan yahay wuxuu u baahan yahay hoggaan aan loo guulwadaynaynin laakiin la ixtiraamayo ixtiraamka dadka inaad ka kasbato ayaa la rabaa ee inay kuu durbaan tumaanay kuu guulwadayaan lama rabo hoggaan dulqaad leh hoggaan dhimrin leh hoggaan turis leh hoggaan tawaaduc leh tawaaduc ereyga ugu muhiimsan waaye tawaaduca muxuu yahay waa inaa ruuxa liidharka ama hogaamiyaha qaladaadkiisana uu aqbali karo oo garashiyo ka bixi karo tabartiisa iyo nuqaada dacfigiisa ama meelaha uu ku liitan uu garanayo oo cid ka caawisa uu heli karo walaalayaal adduunka aan joogno maanta adduunkii hore maaha waa adduun tartankiisa oo batay tartankiisa oo xoogaystay khudbadii ugu horreysay 16 waxaan ku sheegay inay nagu soo socoto geopolitics ama loolan juqraafi siyaasadeed oo khaliijka nooga imaanayo sanad markay dowladda joogtay mushkiladaas way qabsatay khudbadii baarlamaanka uga digay midka hadda ka digaya waxay tahay loolanka geopoliticska ee adduunka markaa nooga imaanayo mad khaliijka keliya maaha ee siraaca ama loolanka u dhexeeyo shiinaha iyo maraykanka nooga imaanayo oo uga nooga imaanayo yurub oo isku dhinaca iyo maraykan iyo shiina nooga imaanayo bariga afrika ama geeska afrika waa ogtihiin qolo kasta waxay u soo magacaabatay ergey gaar ah shiina hadday tahay maraykan hadday tahay yurub hadday tahay waa area ama waa gobol maslaxad weyn laga leeyahay haddaan marka gara karin sidaan u maaraynayno arrintaas ama hoggaan aan gara karin oo yimaado oo keliya ah inuu un xilka la qabto keliya loo imaanin ee fahamkaas loo yimaado waxay u baahan tahay arrinta ayada ah inaan ka digtoonaano waxaan u baahannahay adduunka hadda waxaa yaraanaya dhaqaalihiisii isagoo covid-19 u dhacay waxaa yaraanaysa ahmiyada la siinayo waddamada soomaaliya oo kaleeta aad u yaraanaysa xagga dhaqaalaha markii la yidhaahdo haddaan lehelin marka hoggaan la jaan qaadi kara adduunkan cusub oo waxaan ay yidhahdaan clarity of vision leh oo aan articulate garay karin ishuyada dalka leeyahay oo aanan formulate garay karin institutionka democratiska oo ay ku xiran tahay dayn cafintii wixii la mid ah haddii aan la helin dalkani halis ayuu ku jiraa sidaas daraaddeeda waxaan u baahannahay in aan arrintaas iyada ah aan guntiga isaga dhigno oo aan samayno dadaal fara badan aan samayno meesha ugu dambaysa aan uga baxayo waxay tahay waxaan u baahannahay in doorashadii soo dhacday waan ogahay xildhibaano badan oo halkaan fadhiya oo labada aqal ee baarlamaanka ku jira qaabka ay ku imaadeen dhammaanteen waan is ognahay waxay ku imaadeen duruufo oo ayaga raalli ka ahayna lagu soo saaray sidaas daraaddeed markay codka dhiibayaan waxay fiirinayaan duruuftii ay ku soo baxeen iyo damiirkooda labadaasaa loolan ku jira duruuftii aad ku soo baxday iyo damiirkaada aad ku codaynaysid labadaas loolan ayaa ku jira haddii qof abaal kugu leeyahay abaalka qarankaa ka weyn annagoo og in xildhibaanada la soo magacaabay oo dad soo magacaabeen oo aysan tartan ku imaanin oo ay dad tartamaya hadda jeeba ku wataan xildhibaano ay soo magacaabeen ayaan oggolaannay inaan tartanno taas inaa ogaatiin waayo waxaan u oggolaannana waxay tahay danta soomaaliyeeda saas ku jirtaan garowsannay sidaas daraaddeed damiirkiinna iyo duruuftiinna waxaan rajaynaynaa inay damiirkiinna ka xoog bato
duruufta aad ku soo baxdeen oo dalka aad ugu helisaan hoggaan daacad ah oo dulqaad leh inaad u doorataan waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi